أنا ما تيجر مركز الدولة وحن كعد سنة يا ولا لا مسلمين تابع حن كعد سنة هنا يرنا حريص لنقصه يعني ويدوده ما تقولنا قصاعة وهنا مشينا نويبيان وحن سمعنا وحن كعد سنة إن كايجين كياسبين وين يجينا كلام إن الدولة سمعنا إنه كنت بحوينها ولا كعد سنة بحوين نوكينه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي محمد مومي سبحان بالله وحنا هاي بيش الذي يقول بيش الغفري هل كان وحن كشيء يا أسمي صاحب بدي أي هري وصون شيئا باهدا يدا عن أقبله مشينا دا كليها مايرا أنا قوانا كاتشين أي مشينا دا كايدا نجا ساران وحن بيش هو يسنا هو لبى مشي مدي أدنى لقدر سميه ولي لبى مشي وحوي أن تذكر وحي مريان شنيا لبعض شنيا تبنين تذكر قاعدين وحيا وارك وحلا هيا مجران مركا أنه شركة جنجراد وحوي قيل دان وعنو قيل داميننا مامور قبل كهو رأيو برساب كلها ديجان كا كلها مقرنة ساي برلمان كا dadka shacabka waxaanu qaylo u diraynaa inay soo gaaraan noo soo gurmadaan mishiinaan u baahanahay dadkii tiradaas ay ka bateen walaalayaal dadkii baan nahay annaga iyo inta naga dambaysaba waxaanu u baahanahay mishiino si degdeg ah ugu baahanahay cid noo maqan ma jirto idinka hayni hana la soo gaaro waxaan halkan ku darayaa oo kale madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaan ku darayaa waxa weeye madaxweyne labadii mishiinad noo keentay sidaan maalintii ku sheegayna wax shaqeeyeen noqon waay waa labada mishiin baa 8 ku ah inta aan shaqeynin ee baraha bulshada laga sheegay inay mishiinada shaqeeya isbitaalka laga helay wax ka jira ma jirin mishiinadii ma shaqeeyaan kuwa horeen ma shaqeeyaan marka dadkayga waxaan u sheegaynaa inay soo gaaraan si degdeg ah oo soo gaaraan mishiinaan u baahnaa ugu dambeyn dawladda Soomaaliland madaxweyne ugu dambeyn waxaan ku dambaysiinayaa madaxweynaha Soomaaliland madaxweynaha anaga dawladii hore waxba nama istirin gobol ahaan hal mishiino dawladdu noo keentay ma garanayno waxa weeye dawladda waxaan ku codsanaynaa inay soo gaadho mishiino noo keento noo soo kumato madaxweyne taasaan ka codsanaynaa anigoo bukaana oo xanuunsanaya ayaan codeeyay maalintii kuna codeeyeen kuwa ku jiray 3 saacadood ay kuwa ku jiray marka bukaana waan ahaa marka يا وحي مقرنيسان كوغو codeynayay isbedel bay mishiinadaasan baadureyna mishiinadaasan kuwadana hadaan nahay dadka bukaanada ay kaliya fariistay madaxweyne codkayga dug soo gaaro in waan kaaga mahadcelinaynaa codsigayga aad garanaysaa oo hirgeliso anigoo Ilyas Xasan Muumina oo kaliya la in 12 sano kaliya la dhaqo oo kaliya mar la ii bedelay oo kaliya maadaama hadana ay bari corona iga dhimatay oo sida u dhibaataysan ayaa imika ugu kaliftay inaan maxay hay'aday in aan warbaahinta inaan maanta ka hadalno wax ugu kaliftay in hadda la ku rooyahay aan 3 jiin oo kaliya noo shaqeeyaan 3 jiin dadkii lagu meediyay ka taarnoonadeen oo 20 qof lagu meedo 8 qofna ay dilooliin iyo wax joogaan dibadda ka joogaan dhibaatada noocayaan haysata ma hele wixii asaasiga inuu naga maqan yahay haday hoos noqoto haday kool noqoto wixii asaasiga kalena ma hayno xukuumadda Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa inay si degdeg ah loo soo gaadhkeeyo ka kaliyaha lagu meediyay wax weeyaan hadii lagu aad baan dhibaato xoog aan ugu haysata saasan warbaahinta maanta oo imanay dhibaato xoog inay haysato wax weeyaan dadkii xukuumadda Soomaaliland waxa la hoos noo soo eegto meeshada ha timaadaan noo timaadaan leenahay ku daraya jiinka yaasifeeya al-asaasi u baahan yahay kama hayn doorkii dhawaan kala yaani kaaba naga xumaa waxaan Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa inay jiinka yaasifeeya weyn iyo jiinna kala in dawladda Soomaaliland noo keento madaxweynaha wala ka codsanaynaa madaxweynuhu noo keeno magacaygu Cabdi Maxamed Sheekh Faarax waxaan kamid ahay dhalinyarada magaalada Boorama dhalinyarada loogu sifeeyo kaliyaha dhakhtarka weyn ee magaalada Boorama maanta warbaahinta waxaan soo horjoojisay marxalad baa maanta soo horjoojisay warbaahinta marxaladdan soo horjoojisay waxay tahay in mataqaanaa dhakhtarkii weynaa ee magaalada Boorama mataqaanaa marxaladiisii ay sii xumaanayso marba marka ka dambaysa mataqaanaa marxaladiisii ay aad u sii xumaanayso tayada kale mataqaanaa
mataqaanaa waxyaabihii aan ka heli jirnay dhakhtarka weyn, hadday noqoto mataqaanaa dawooyin, hadday noqoto shaybaadh, waxaba mataqaanaa waxa laga qaadaa lacag. iyadoo sidaa tahay haddana mataqaanaa sidii lanoogu shaqayn jiray looguma shaqeeyo. markaa mataqaanaa waxaan ka codsanayaa xukuumadda Somaliland inay mataqaanaa la soo garab istaagto. maalin dhaweytoole madaxweyne ku-xigeenku wuxuu yimday magaalada Boorama, wuxuu mataqaanaa ka warramayey inuu mataqaanaa mishiinno cusub oo keenay. mishiinadiina mataqaanaa ayna waxba ka jirin moogta, oo mataqaanaa loogu sheekeeyey madaxweyne ku-xigeenka isaga inuu ay shaqeeyaan, bahalladiina mataqaanaa muddo ma shaqeeyaan. waxa meesha yaallana waxa weeye 3 ishiin baa yaalla. 3da ishiin 2 marmar way xumaadaan, 1 mid baa shaqeeya. beeshinada mataqaanaa meeshaa galayna aad ba uga badan yihiin mataqaanaa, iyo inta taalla iyo mataqaanaa aad bay u kala badan yihiin. markaa xukuumadda Somaliland waxaan ka codsanayaa inay mataqaanaa halkaa ishiinada ay naga soo garab istaagaan, maadaama mataqaanaa mas-uuliyiin